السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامية تريركن inaad fiicantihiin baan rajeynayaa isniin wanaagsan. Tiriirkan baan qaadanay maanta saacadka tiriirkan baan qaadanay. Marka tiriirkan waxaan ku qaadanay lowest risk ama riskiga kan u yar. Almost adiga waxaan qoornay 76 baan ka galnay. Bartaasaan ka galnay. Stop losskeena marka wuxuu noo yaalaa halkaas inoo yaala adigu waa 24 22 meelahaas meesha oo soo stop loss 23 bib marka 23 bib waxaan uga dhigay stop loss keena wax kala ma suuqa momentumka selka ayaa ku awood badan meel fiicanna waa ka galnay oo halkana marka gidaarka yarkaaba lagu yara dhagan yahay xogaa 5 minute-ka almost hada 28 bib markuu ina siiye 38 bib 38 bib waxaan filayaa inay sidaa u badnayn marka waxba kamiinaan xiranin marka hadduu 40 bib yimaado stop losska intagaan keeni doonaa waan iska sii dayn doonaa 23 bibna waa riskiga ugu yar ee aan qaadan karno maanta oo isniina okay wax badan baa isbedelay haygii bishii October ay waday bartan baa laga soo celiyey laakiin annagu halkan maanan doonaynin waxaanan doonaynay at least in halkan laga soo celiyo at least inuu halkan gaaro ama inuu halkan gaaro aan doonayna marka haygan ma dhamaystirmin dib baa loo soo celiyey maybe inuu sii socdo hayga uu loo sii samaysto oo ilaa halkan gaaro maybe inuu halkan ku noqdo ma kala sheegi karayno ma hubno marka annagu waxaa weeye wixii aan markaa arki karayno un baan qaadan karayna marka maanta oo kale ma hubno October halkan ma gaaraysa laakiin quruxdeeda waxaa weeye inay halkan gaarto ama halkan gaarto labadaa meelood at least len meeshan aad ugu sii fiican tahay marka waxaa moodaa in sidii caadiga ahayd break ay samaysatay kadibna break ay retest ku samaysatay retestkana marka maadaama time uu weyn yahay ila badana la soo wado suuqa waxay u badan tahay inuu halkan tagay inuu halkan tagi doono marka weekliga aan eegno maanta waa iska isniin waxba laguma qiimeyn karo isniinta weekliga markaan eegno already retestiga ay samaysatay soo maaragtaan caadi buu usoo daatay saaki 200 oo bib asia iyo london soo daatay marka isbuucii hore nooma noqon doono saan u malaynayo isbuuci hore bibs fara badan baan qabanay oo aad iyo aad iyo aad u fara badan marka markan waxay noqonaysaa inaan more careful aan noqono oo more careful aan noqono sababto waxaa weeye already gidaarkan waa la ixtiraamay isbuuci dhaweedna gidaarkan waa la jebiyey laakiin falis breakout bay noqotay marka ma hubi karayno in weekligan uu sii socon doono oo ilaa halkan gaari doono ama ilaa halkan gaari doono marka limit ama area ayaan ku triggerin doonaa anagoo markaa ixtiraami doonaa ama eegi doonaa hadba sidaan uga faa'iideysan karayno waxaa laga yaabaa hadda
weekligan 200 bibsaa ka soo daatay inuu low keliya samaysanayo haygiisana uu kan jabinayo oo meeshaan rabnayo halkana meesha kasii sarayso halkaasa inuu gaari doono imala socotaa inuu halkana gaari doono halkana gaari doono halkana lowgiisii ay tahay who knows marka maato isniina xoogaa taxadarkiinu wuu badnaan doonaa okay already ba gidaarkan ma gaarin laakiin waa u dhowaaday aad buu u dhowaaday marka haddii aan eegno wixii aan rabnay October sawirada aan qaadanay maxaan ka rabnay balaan eegno waxaan ka rabnay October waxaan ka rabnay inay sii socoto inay gidaarkan jabiso sii socoto train line-kan yani inay jabiso train line-yada inay jabiso kadibna ay sii socoto halkaa tagto halkaa markay tagto inay bartan oo Fibonacci number is 0.618 ah ay timaado kadibna halkaas aan ka qaadano lugta labaad bay marka halkan waxaa moodaa hadda in la gaarayo halkan xoogaa waxaa moodaa in ay communicating noqoto laakiin maanta way fursad inay gaarto suuq u socday iyo qaabka xawliga u socday way fursad marka gidaarka aan rabnay inuu gaarana waa kan weeyaan bartaan marka waxaan rabnay halkan inay madax noqoto halkana garabkii midig noqdo bidix noqdo halkana kii midig lagu sameeyo halkana aan ka qaadano fursadeena dheer ee bayda inaan ka qaadano marka hadda taas marka waxay u eg tahay inaysan hadda fududeyn marka another perspective ama another idea ayaa soo baxaya marka oo aan qaadan karnaa another idea waxa waaye inaan idhaahno already ba 4 hour-ka inaan tagno oo nimaano kaa dheeligu inoo ahaa 4 hour-ka marka wuxuu tusinayaa more wuxuu kaa tusinayaa wixii dheeligaa ka arki lahayd marka waxaan dhihi karnaa already madaxa waa la samaystay halkanna waa bidixdii halkanna waa midigtii suuqan taan arround waa samey laakiin taan arround marka uu sameynayo dahabka inta badan wuu raftaa taas waay aan maanta stop losskeena aad ugu yarayay aad baan ugu yarayay sababta waxa rafashada waxa laga yaabaa in maalmo socotaba wax hore uu ka dhaqaaqayo way adag tahay inuu hore ka dhaqaaqo way yara adag tahay marka trader marka waxaan ku qaadanay hadda aan ku qaadanaba waxay tahay already ba in uu candleka 4 hour-ka uu joogay levelkan hoose halkan markaa tagnay Fibonacci numberskana ayna siinayaan 0.5 marka waa accurate waa meelaha inta badan suuqa laga celiyo taas waay marka 0.6 anigu laakiin 0.618 ayaan aad iyo aad wax loo yaqaano ixtiraama taas waay markaan stop loss-ka u yeelay halkan oo kale stop loss-keena meelahaas aan dhigi karnaa waa caadi meeshaan doonaan dhigan karnaa maxaa meeshan waa key level at least xataa wuxuu ku siinayaa 5-6 times
profit babies fiican oo profit ah laakiin 0.5 oo kale laftiisa muxuma waa ka dhaqaaqa laakiin 0.6 ayaa more and more reliable marka already ba waxaan movekan inuusan dhaafin baan babieskana eserkana u yareynay wax loo yaqaano tibigana u basan hadduuna yani nagu soo noqdo oo naga saaro kale si wax khasaar ah oo waaweyn ama dhibaato badan nagu noqon karaya inaan u gelin marka lugtanna meeshan inay ka dhaqaaqdo haddii halkan ka dhaqaaqin marka nagu soo noqoto waxay ka dhaqaaqaysaa 0.618 destination kale aan ku sugayna waa meesha marka halka haddii nagu dhaqaaqi weydo halkan bay ka dhaqaaqaysaa marka labada positionba waa haysanaa wuuna dheeraan doonaa mar hadduu inoo dhaqaaqo hadda inoo dheeraan doonaa okay aan sawirto xagaagkaasna waa noo sawiraya aan hore uga soconaa taba 1 hour ka aan tagno 1 hour ka already canliskan meesha waa laga celcelinaya hadda tusaan oo kale foliumkan saakay buu ahaa saaka aad buu fiinaan lahayd haddii aan wax loo yaqaano available ahaan lahayd aad buu soo daatay marka hadda saan ka arkayno halkan rejectionkan labadii kaanada u dambeeyey meeshan waa laga soo celiyey laakiin hadda kii u dambeeyey kan hadda 1 hourka inoo socda waxaan moodaa inuu folium ku socdo marka already ba wax loo yaqaano waxaa laga yaabaa inaan 15 ama 10 dib uga baxno ama stop-loss kan u dayno stop-loss kan ma badna aan stop-loss kan u daysan marka hadduu naga saaro khalaas weeyaan sidaasaan uga baxaynaa another opportunity waxaan ka raadin doonaa meeshan oo ku beegnaanaysa markaa 60 ama 60 kanna hadduu halkan soo jabiyo retest ku samaysto kala meelahan oo kale laga yaabaa inaan hadduu si xooliya maanta usoo dhaco inaan sar usii qaadano ilaa iyo halkaasba inaan fursaddaas sii daynin fursaddaas halkaasna bayaan ku sugno waana iska isnina wax ina dadijinayaa ma jiraan
isniinta inta badan suuqa foliumkiisa aad buu u hooseeya. mar uu halka inoo yimid baa jirtay oo 28 bib, laakiin wax badan maaha. labaatan iyo saddex bib stop loss hit 23 bib. khalaas intaas ayaan waxa loo yaqaan maantaba haddii gidaarka uu soo jebiyay isla maanta ha tradekeena kaasuu ahaa. marka waxay u badan tahay inaan saasaan suuqa ku dhaafayna maanta dulaahayna. maalmaha kala badan maalmaha kale waa badan yihiin. welibana hadda 1 hour kan oo kale yani waxaa laga yaabaa in gidaaradan ay aad u ku sono inay 1 hour gidaarada aad ugu sono noqdaan inay aad ugu sono noqdaan. marka haddii aan qaadanayno xataa labada kaandal banaankooda shishe ayaan ka qaadan doonaa bayda. haddii kalena meesheenii hore ayaan ku sugi doonaa inta ranjigan hoose saddexdan kaandal oo intan ah waa ranji yar ah. ranjiga inuu ka soo baxo oo banaankaasaan ku aragno oo halkan ka qaadano ama inaan wax loo yaqaano meesheenii hoose ku sugno. hadduu soo jebiyana leefkan soo jebiyana ilaa iyo 0.6 intuu gaarayo inaan sii qaadano oo sii haysano hagaag. banaankan oo kale intaan uu soo jebiyay ranjigan yarkaa maybe inaan still inaanu tradekan waa valid, laakiin hadda wax valid ma jiraan. haddaynu hoos sii aadayo ayay u egtahay. marka waa anaga waa iska isniin mufiyadan quruxda badan waan soo qabanay waan kasoo faa'iidaysanay all of them. davis fiican waa soo qabateen isbuucyadii hore o dhan. marka don't worry way noo imaanaysaa waqtiyadaas oo kale inaan waxa weeyaan maskaxdeena isticmaalno oo si taxadar ah u trade garayno ayaa muhiim. intaas unbaa muhiim. intaa ayaa muhiim.
intan oo dhan marka waa very strong area. laakiin haddana dahabka meeshii loo wado waa loo wadaa, meeshii loo wado waa loo wadaa. waad kalatiin sooma. Any question? wax kaloo su'aala? wax su'aalaad jira baa weydiin karaysaa intaan xiisada ka bixin. Any question? wax su'aala? adigaa mudan walaal Nasriin, adigaa mudan. Any question? mahadsanid macalin, aad baa mahadsantihiin, idinkaa mudan. maanta iska isniin oo dahabka uu dhaqaaqi waayey maahane treken 100 buuna siin lahaa. culays fara badan oo soo fulay iyo meel adag oo level adag oo kenya soo yimid oo isku darsada. babis fiican buuna siin lahaa, laakiin dhib ma laha, maanta keliya suuqa maaha. maalmaha soo socdaan dilayna hadduu ilaahay idmo. hadda laftigeedana haddaan fursad ka helno waan sii qaadanayna. intaan hadda mataqaanaa New York session ugu jiro, tii kalena brito iyo maalmaha kale ayay noqonaysaa hadduu ilaahay idmo. aad baa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.